waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xidhan kanaalkeena Dansheeg. Waxaan dhahayd lahaantii Ramadaan Kariim. Maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan taariikhdii dowladda Cabbaasiyiinta oo kooban. Dowladdii Cabbaasiyiinta waxaa loo nisbeeyaa dhashii Cabbaas ibnu Cabdilmutalib oo ahaa nebiga adeerkii. Dhammaadkii khilaafadii Umayyadeed waxaa soo baxday suuqgeyn la suuq geynayay Cabbaasiyiinta, waxaana hawshaa waday Abu Muslim al-Khuraasaani. waxaana soo dhirindhiriyay Farisiyiinta oo ka cadhaysnaa dowladdii Umayyadeed ee noqotay carabta keliya. waxaa isxulafaysatay Abu Muslim al-Khuraasaani iyo Abulcabaas as-Safaax oo ahaa adeerkii nebiga, waxaana uu Abu Muslim u magacaabay khaliifkii muslimiinta. waxa uu noqday Abu Cabaas khaliifka muslimiinta ee Khuraasaan iyo dhulka Faris, waxayna ahayd dowlad ka madax bannaan Umayyadeed. Cabbaasiyiintu waxay calan ka dhigteen calan madow. Cabbaasiyiintu waxay bilowgii sameeyeen inay soo dhaweystaan Shiicada si ay khalkhal u geliyaan dowladdii Umayyadeed, laakiin way isku gidiyeen ugu dambeyntii. waxay Cabbaasiyiintii direen ciidan uu hogaamiye u yahay Quxtaba binu Shayba una direen Ciraaq, wuxuuna jabiyay Umayyadeed. Ciraaqna wuxuu kusoo daray dowladdii Cabbaasiyiinta. sidoo kale waxay ciidan weyn u jihayeen Shaam, waxayna Umayyadeed ku jabiyeen dagaalkii webiga Saab sanadkii 750 miilaadiga. waxauu noqday Abu Cabaas as-Safaax khaliifkii ugu horreeyay Cabbaasiyiinta kadib dilkii khaliifkii ugu dambeeyay ee Umayyadeed ee Marwaan bin Muxamed. waxay galeen Cabbaasiyiintu magaalada Dimashq oo ahayd caasimadii dowladda Umayyadeed, waxayna halkaa ku laayeen badi qoyskii Umayyadeed. waxaa u suurto gashay mid ka mid ah xubnaha qoyska Umayyadeed ee waa Cabdiraxmaan bin Daakhile inuu u cararo dhanka Andalus, halkaa uu ka aasaasay imaarad islaami ah oo ka madax bannaan Cabbaasiyiinta. waxaa bilowday waqtigii koowaad ee Cabbaasiyiinta oo ahaa 100 sano, waxaana xilka u kala dambeeyay ilaa 10 khaliif oo taariikhdoodu waxay ka bilaabanaysay 230 hijriyada ilaa 230 hijriyada. Cabbaasiyiintu waxay maamulka dowladda u dhiiban jireen Farisiyiinta si ka duwan Umayyadeed oo iyagu carab garabsan jiray. furashooyin badan ma sameyn sidii Umayyadeed, laakiin waxay ku dadaaleen dhaqdhaqaaqa aqoonta iyo dhaqdhaqaaqii turjumadaha. sanadkii 136 miilaadiga waxaa khilaafada la wareegay Abu Jacfar al-Mansuur oo la keliyoobay khilaafadii kadib isqabqabsi dhiig badan ku daatay oo uu la galay adeerkii Cabdullaahi ibnu Cali. waxaa laga takhalusay Abu Muslim al-Khuraasaani oo ahaa ninka u fududeeyay inay khilaafadu kusoo wareegto Cabbaasiyiinta galaangalkiisa oo weynaaday darteed. waxaa soo gabagabowday kacdoonkii Calaawiyiinta ee Xijaaz oo hogaaminayay Maxamed Nafsi, waxa uu ahaa Cali bin Abi Taalib. Abu Jacfar al-Mansuur wuxuu aasaasay magaaladii Baqdaad oo caasimad ka dhigtay. dowladda Cabbaasiyiintu waxay gaadhay heerkeedii u sarreysay xilligii Haaruun al-Rashiid, kaasoo la wareegay 170 hijriyada. Rashiid wuxuu xilka wasiirada u dhiibi jiray baraamikada ka hor inta aanu ku inqilaabin dhacdadii loo yaqaanay Nakbatul Baraamika. dhimashadii Haaruun kadib waxaa xilka isku qabsaday wiilashiisii Amiin iyo Ma'muun, taasoo ugu dambeyntii ku dhammaatay dilkii Amiin iyo inuu xilka la wareego Ma'muun. xilligii Ma'muun waxaa dhacay korkac aqooneed, wuxuuna dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqyadii turjumadaha ee cilmiyadii falsafadii Giriigga, waxaana uu aasaasay jaamacaddii Baytulxikma ee ku taalay Baqdaad. madhabka dowladdu wuxuu noqday Muctasila, waxaana halkaa ka dhacay khilaafiyo badan, waxaana aada looga dooday arrintii abuurka Qur-aanka. 218 waxaa khilaafada la wareegay al-Muctasim billaah. shaqooyinkiisii waxaa ugu muhiimsanaa dhismaha magaalada Samraa iyo furashada magaalada Camuriya oo ahayd halka ay kasoo jeedaan asal ahaan imbaraatoriyadii Biisitiyiinta qoyskii maamuli jiray. al-Muctasim wuxuu ku tiirsaday tiro badan oo Turki ah, waxuu ka dhigtay ilaaladiisa khaaska ahayd, wuxuuna u dhiibay xilalkii sarsare ee dowladdii Cabbaasiyiinta bedelkii Farisiyiinta. laga bilaabo waqtigaa waxaa xoogeysanayay Turkida oo xilalka waaweyn kusii badanayay. waqtigii Cabbaasiyiinta ee labaad wuxuu ahaa 200 oo sano, waxaana inta u kala dambeeyay 15 khaliif. waxaa sii socotay darajasiinta Turkida ilaa ay ka gaadheen barsaabada gobolada, hogaanka ciidanka iyo wasiirada, iyo hogaanka ilaalada khaliifka ee gaarka ah. waxaa soo baxday naaneysta Suldaan, isaga ayaana ah xaakimka tooska ah ee dalka. khaliifkuna wuxuu noqday madax sharafeed aan maamul badan lahayn. ma awoodin Cabbaasiyiintu inay ilaaliyaan midowga dowladooda, waxaana u qaybsameen dowlado badan oo taabacsan magacaan khilaafada. dhulkii Maqrib waxaa kasoo baxday dowladii Ad-Daarisa iyo Aqaalibtii. Andalusna waxay noqotay dowlad Umayyadeed oo madax bannaan. dhanka Masar, Axmed bin Tuuluun ayaa kacay lana go-ay ulana baxay dowlad Duuliyuun. dhinaca bariga waxaa soo baxay as-Safaariyuun iyo al-Buwayhiyuun oo haystay dhulka Faris. dhulka Shaam waxaa haystay al-Xamdaaniyuun. dhulkii xigtay qaraamidada.
xilligii almutawakil billaah wuxuu isku dayay inuu madhabkii dowladda ee muctasilada ahaa u bedelo sunni shaafici ah. xilligii almudiic billaah waxaa curatay khilaafadii faatimiyiinta, taas oo qabsatay dhulkii maqrib iyo masar, u asaastana magaaladii qaahira si ay caasimad uga dhigtaan. caalamkii islaamku wuxuu u qaybsamay 3 khilaafo oo iska soo horjeeda: khilaafadii cabaasiyiinta ee baqdaad, khilaafadii faatimiyiinta ee qaahira, khilaafadii umowiyiinta ee andalus. markuu xilka qabtay alqaa'im billaah waxaa bilowday waqtigii saddexaad ee cabaasiyiinta, waana waqtigii salaajiqadu qabsadeen dowladda, waxaana ahayd ku dhowaad 200 oo sano oo ay xukunka isaga kala dambeeyeen 11 khaliif. xilligii qaa'im billaah waxaa u suurto gashay faatimiyiinta inay qabsadaan caasimadii baqdaad, waxayna ku sigteen inay ridaan khilaafada cabaasiyiinta. wuxuu garabsaday khaliifka cabaasiyiintu suldaankii salaajiqada ee Tughralbaag oo u soo gurmaday kana badbaadiyay dowladda cabaasiyiinta khatartii kaga soo fool lahayd faatimiyiinta. ilaa xilligaa waxaa salaajiqadii gacan sare ku yeesheen dowladda cabaasiyiinta. Tughralbaag kadib waxaa saldanada la wareegay suldaankii Alba Arsalan, kaasoo bisadiyiintii ku jabiyay dagaalkii Maalaskardi 1071 miilaadiga, asaasina dowladda Seljuuqiyiinta ee Anadol. xilligii almustadhir billaah waxaa yimid dhulka islaamka ciidankii koowaad ee mactabudirka, kaas oo qabsaday baytulmaqdis. xilligii almustarshid billaah waxaa soo baxay Cimaamadiin Azanki, kaas oo qabsaday Shaam, asaasina dowladda Zankiya, kaas oo dagaal dheer la gashay ciidankii mactabudirka ahayd. markii uu dhintay Cimaamadiin Zanki waxaa tirada la wareegay inankiisii Nuurudiin Maxamuud, kaasoo ciidankii mactabudirka ka soo celiyay magaaladii Rahaa. nuurudiin waxuu 3 u daray sidii loo ridi lahaa khilaafadii faatimiyiinta ee shiicada ahayd ee Masar haysatay, waxaana ciidanka hogaaminayay Asadudiin Shirooka iyo wiilka walaalkii Salaaxudiin al-Ayuubi. Salaaxudiin al-Ayuubi waxaa u suurto gashay inuu jabiyo faatimiyiinta iyo inuu asaaso dowladda Ayuubiyada. dowladahan oo dhan, Sankiya, Salaajiqa, Ayuubiya, waxay ahaayeen kuwo taabacsanaa magac ahaan khilaafada cabaasiyiinta, laakiin maamul ahaan iyaga ismaamuli jiray. xilligii almustadhir biamrillaah waxa uu furtay Salaaxudiin al-Ayuubi Qudus, isagoo ka furtay ciidankii mactabudirka ahaa. sanadkii 1258 miilaadiga waxaa dhacday Baqdaad, waxaana riday Magoolka oo uu hogaaminayo Hulagu Khan, waxayna gacanta ku dhigeen khaliifka cabaasiyiinta al-Muctasim billaah oo ay dileen. waxaa dhacday khilaafada cabaasiyiinta. Muctasim billaah wuxuu ahaa khaliifkii u dambeeyay cabaasiyiinta ee Baqdaad. Magoolkii waxaa jabiyay dowladdii mamaaligta, waxayna ku jabiyay dagaalkii Caynajaaluhu joojinayay maatikoodii Shaam iyo Masar ku soo fool lahaayeen. mamaaligtu waxay dib u soo cesheen khilaafada cabaasiyiinta ee Qaahira waqtigii Suldaan Bebaras, waxaana khaliifkii koowaad noqday Muntasir billaah. waxay khilaafada cabaasiyiintu mid aan kaalin ku lahayn siyaasadii dowladda, laakiin dowladda dhabta ahi waxay ahayd suldaanadii mamaaligta. khilaafada cabaasiyiinta Qaahira waxay jirtay 250 sannadood ilaa ay dhacday 1512 miilaadiga. Cusmaaniyiinta ayaa kusoo duulay Masar, ridana dowladdii mamaaligta. suldaanka Cusmaaniga ah ee Saliim al-Awwal ayaa ku khasbay khaliifka cabaasiyiinta Maxamed al-Mutawakil uguna dambeeyay cabaasiyiinta inuu ka tanaasulo khilaafada. sidaas ayayna ugu wareegtay khilaafadii reer Cabaas khilaafadii Cusmaaniyiinta. caasimadii Qaahirana ugu wareegtay caasimadii Istanbul. waad ku mahadsantahay daawashadaada mowduucan, ونو موضوع حقا إن شاء الله. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.